Ma ogtahay in Maraykanku dagaal ka galay Vietnam muddo ka badan 20 sano haddana ugu dambeyn ku guuldareystay dagaalkii. Wax walba waxay bilaabmeen sanadkii 1954 markaas oo Vietnam loo kala qaybiyay laba qaybood. Waqooyiga Vietnam oo ahaa dawlad shuuci ah ay taageerayeen midowgii Sofiyeedka iyo Shiinuhu, iyo koonfurta Vietnam oo uu taageerayay Maraykanku. Iyadoo laga cabsi qabay faafitaanka shuuciyadda, Maraykanku waxa uu taageerayay koonfurta Vietnam waxaana ka soo horjeestay waqooyiga Vietnam. Waxay aaminsanaayeen in haddii hal dal uu ku dhaco shuuciyadda, dalal kale oo ku yaala koonfur bari Aasiya ay iyaguna ku karaan. Sanadkii 1965 Maraykanku si buuxda ayuu dagaalka u galay, isagoo bilaabay duqeymo joogto ah oo ka dhan ah waqooyiga Vietnam, isla markaana diray tiro badan oo askar dagaal ah si ay uga dagaalamaan dhinaca koonfureed. Laakiin caqabadda dhabta ahi waxay bilaabantay markii askarta Maraykanku ay cagaha dhigeen Vietnam. Tani ma ahayn nooca dagaal ay u soo tababarteen. Halkii ay filanayeen dagaal toos ah, waxay la kulmeen kaymo cufan, godad qarsoon iyo dagaalyahano weerar lama filaan ah ku qaada kadibna si degdeg ah uga dhuunta kaynta. Waxa xigay waxa uu ahaa dagaal aad u daran oo socday ku dhawaad 20 sano, kaas oo Maraykanka kaga baxay in ka badan 58,000 oo askari oo dhintay iyo balaayiin dollar oo kharash ah. Ugu dambeyn heshiis nabadeed ayaa la gaadhay 1973. Ciidamada Maraykankuna waa laga saaray Vietnam. Dagaalku waxa uu ku dhamaaday guuldarro Maraykan ah kadibna markii koonfurta Vietnam ay dhacday sanadkii 1975, taas oo u gogol xaadhay mideynta Vietnam oo hoos timid xukunkii shuuciga ahaa sanadkii 1976. Ma rabtaa inaad baratid xirfadaha online-ka lagaga shaqaysto income iyo dhaqaale inaad ka samaysid online-ka? Haddii aad u baahan tahay inaad barato xirfadaha AI-da, freelancing, affiliate marketing, cryptocurrency iyo digital products sida loo sameeyo online-kana loogu iibiyo, iyo xirfadda e-commerce-ga, waxaan ku haynaa e-books si tafatiran kugu sharxaya kuna baraya kuna siinaya siraha xirfadahaas online-ka loogaga shaqaysto. Kaliya WhatsApp-ka iga soo weydii buugaagtaas, halkaas ayaana kugu soo diri doonaa. Igala soo hadal nambarka WhatsApp-ka aan dhigi doono commentiga.